السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحابتا جنرال كوين سلامي. waxaan ka hadli doonaa sida loo install gareeyo toolka loo yaqaano Ziricatu. insha Allah video hoostiisa aad ka heli doontaan description-ka linkiga shabakada caanka ah GIT hub ayaad kala soo degaysaan. haddaba casharka si aan u bilaabno waa inaan terminalkeena furnaa. inta aanan application-ka mise programka aanan soo kicin aan soo download gareysan waa inaan marka hore shubataa programka yarka ah sudo apt-get install mon complete. kadib intan ayaad leedahay. aniga hore ayaan usoo degsaday oo intaan casharka ka sameyn ka hor ayaan soo degsaday, balse hadda waxaan u malayn doonaa inuu isku soo jari doono. hore ayaan igu jiray iga clear garay ma rabi. kadib waxaan leeyahay git cd desktop kadib waxaan leeyahay ls cd Ziricatu isoo qaad copy. kadib waxaan leeyahay enter ls waxaad tiraahdaa chmod plus x space ka bax. kadib waxaad tiraahdaa ziricatu.sh copy. kadib paste kule enter ayaad leedahay. wax kale sameynayso waxaad leedahay // kadib haddana paste kule ziricatu.sh enter ayaad leedahay. kadib sida ujeedinba hadda waan soo dejinay Ziricatu version 0.2 checking ayuu wadaa oo ujeedin kulli wuxuu yiri okay. insha Allah casharada xiga waxaan kasoo diyaarin doonaa how to hack Windows 10 using Ziricatu. insha Allah hadduu leedmo dhammaan asxaabta channelka ku cusub waxaan leeyahay like share subscribe. waan ku mahadsantihiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.